السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي جعل برشاد اللغة الإنجليزية waxaan marka koowaad u mahadcelinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala noo ogolaaday inaan maanta bilowno buugga labaad Headway series-ka buugaagta Headway kala ah beginner, elementary, pre, inter, upper iyo muxuu ahaa advance-aha insha Allah dhammaan buugaagtaas waxaan rajeynaynaa hadduu Ilaahay waqti noo siiyo inaan akhri doono grammarka ku saabsan taasoo caawin doonta ardayda wax ka barata buugaagtaas meel kasta ay joogaan ha dhigtaana jaamacado ha dhigtaana muxuu ahaa macaahid caadi ah iyo ha dhigtaana private intaba unitka koowaad ee buugga elementary-ga ayaan qaadanaynaa unitka koowaad grammarkiisa ilaa 3 video ayaan rabaa inaan ka sameeyo videoga koowaad maanta ayaan qaadanaynaa waxaan leenahay 1.1 fadlan haddii aad nagu cusubtaa videoga markii ugu soo horeysay uu yahay uu soo gaaro subscribe nagu soo bir aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo asxaabteyda waana kaaga mahadcelinayaa inta dabadeed verb to be 1.1 marka verb to be maxaa loo adeegsadaa waxaan leenahay number 1 verb to be waxaan u adeegsanaynaa we can use waxaan u adeegsan karnaa to be ficilka be to talk about inaan kaga hadalno who we are cidda aan nahay and where we are iyo goobta where we are from iyo goobta aan ka soo jeedno tusaale I'm Joe aniga Joe ayaan nahay I'm from Oxford ayaan ka imid magaaladaas Oxford ayaan ka imid qaabka ay isu raacaan verb to be ga iyo subject-ga ayaan halkan ku qaadanaynaa sida hortaada ka muuqato I am short form I am verb to be waa saddex eray am is are todobada subject qaabkan ama shaxdan ay u raacaan hadii ay suuragal ku tahay videoga hakiso oo ka qoro ka gurus I am American aniga American ayaan nahay I am American aniga American ayaan nahay I am American aniga American ayaan nahay he is American asiga American waaye she is American iyada American waaye it's American shayga American waaye we are American inaga American ayaan nahay you are American adiga American ayaa tahay we are American inaga American ayaan nahay haddii qaybta grammarka ama qoraalka qaabka buugga ugu arki doonto waa muxuu ahaa qaabkan hore oo short form-ka ah I am waxay la mid tahay I am oo long form loo qoro he's waxay la mid tahay he is she's waxay la mid tahay she is it's waxay la mid tahay it is we're waxay la mid tahay we are you're waxay la mid tahay you are aan leenahay they waxay la mid tahay they are marka inta yarta casharka exercise ku haboon ayaan rabaa inaan idin la wadaago okay complete the sentence exercise kan dhameystir oo jumladaha ah hay kan koowaad halkaas verb to be ga ku haboon we sida hortaada ka muuqato are ay qaataa waxa uu qortaa qaabkan we are French Francis ayaan nahay we are French Francis ayaan nahay 2 I am from Brack waxaan ka soo jeedaa magaalada Brack qaabkaas ayaan uga shaqeynaa they are Australian iyaga waa Australian exercise-kaas qaabkaas ayaan uga shaqeeyaa verb to be ga sida uu isu raaco exercise macnaha ku saabsan oo ahaa okay at not waxaad ku dartaa verb to be ga not to form negative saa u samayso diidmo I'm not English aniga qof English ma ihi he is not English asiga qof English ma ahan it's not English shaygan ma ahan shay English marka not weyn waa isticmaali kartaa qaabkan waa isticmaali kartaa he isn't English asiga English ma ahan she isn't English iyadu English ma ahan it isn't English shayga ma ahan shay English waayahay we aren't English inagu ma nihin English you aren't English adigu ma tihid English iyo they aren't English iyaga ma ahan English waayahay balan aragno verb to be ga short form kiisa iyo long form kiisa shaxiro ku saabsan I am not I qaybta hore I am oo kaliya ayaa la yaray karaa not markii I am la ku jirto
muxuu ahaa lama yaray karo. I am not saas ayaa long formka loo qorayaa. He isn't waxaan leenahay he is not qaabkaas ayaan u long form uga dhigaynaa. She isn't she's not ayaan leenahay. It isn't long form waxay ku noqon it's not. We aren't waxay ku noqonaysaa long form we are not. You aren't waxay ku noqon doontaa you are not. They aren't iyagu ma ahan they are not. Iyagu ma ahan. Okay, I'm not me he isn't asiga ma ahan she isn't iyadu ma ahan it isn't shaygaas ma ahan. We aren't inagu ma nihin you aren't adigu ma tihid they aren't iyagu ma ahan. Exercise kan bal isku day video inaad joojiso oo ka shaqeyso waa qaybta negative ah laga rabaa. Complete the sentence jumlada dhamaystir in the negative qaab diidma u shaqee. Number 1 kan koowaad they aren't students iyagu arday ma ahan. I'm not from London aniga London kama iman. I'm not married he isn't married asigu ma uusan guursanin. waayahay haddii videoga xilligan aan nala soo gaarto fadlan waxaan ka codsanaynaa haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe dhahdo haddii aad hore noola joogto videoga like dhahdo asxaabtaada u gudbiso kana dhaadhiciso in uu anfici doono saaxiibadiisa ama asxaabtiisa. fadlan gudbi dadku badana madadaalada ay jecel yihiin waxbarashada ama waxyaabaha muhiimka ah naftu oo ma jecla ama kuma dhiirigeliso. fadlan shaqadaas ayaan ka rajaynaynaa inaad qabato. waa mahadsantahay. waayahay numberka 5aad su'aalaha qaabkan u sameynaynaa waxaan leenahay we can ask questions waxaan weydii karnaa su'aalo using inagoo adeegsanayna question words are su'aaleedyo. waayahay qaabkan ayaan u sameynaynaa. What's your name magacaa Mary Jones magacayga Mary Jones waaye. What's his first name magaciisa koowaad waa maxay Brain ayaa la yiraahdaa. qaybtan xagee ka yimid qofka xagee ka timid markaan rabina adeegsado ereyga where ayaan adeegsanayaa. Where's she from where's waa where is qaybta gadaalan ku sharxi doonaa. Where's she from halkee bay ka timid she's China. Where are you from xagee ka timid I am from York waxaan ka imid York. Who is he asiga waayo waa kuma. He's Bowel waa Bowel asiga waa Bowel. Okay, who's David David yaa waayo he is my brother waa walaalkay. Verb to be ga isoo saaray subjectiga waa la kala hormariyaa su'aal markii la sameeyo. How are you see tahay I'm fine thanks waan fiicanahay waa mahadsan tahay. How are they say yihiin they are fine way fiican yihiin. Okay, how old is he meeqa sana ayuu jiraa. Okay, he is 27 27 sana ayuu jiraa. How old are you imisa sana ayaa jirtaa. I'm 19 aniga 19 sana ayaan jiraa. qaybta short formka iyo waxyaabaha la xiriira. qaybta koowaad what's ayaa ku jirto. What's ayaan ugu dhawaaqaynaa what is waaye. Where's waxaan ugu dhawaaqaynaa where is. Whose waayo who is ayaan dhahaynaa. waaye kan lixaad waxaan leenahay waxaa jira su'aalaha qayb la yiraahdo yes or no question. We can give short answers jawaabo gaaban ayaa bixi karnaa to yes or no questions. su'aalaha yes or no question su'aalaha yes or no question ma lahayn eray su'aaleed waxaa laga reebaa macnaha information questions ma ahan oo WH question kuma jirto meesha. Is he old ma duq baa asiga qof waayeel miya aan leenahay yes he is ha wuu yahay. Is she old ayada qof waayeel miya no she isn't maya ma ahan. Is it old shay qadiimiya miya yes it is ha saas waay. Are you German adiga German ma tahay no I'm not maya mihi. Okay waxa kale oo dhigi kartaa yes I am. Are they German iyaga German miya sorry qaybta ereyga you asaa laba macno leh dad badan waa lagu hadli karaa hal qofna waa lagu hadli karaa. ku celi marka are you German adinka German ma tihiin yes we are ha waan nahay no we aren't maya manihin. Are they German iyaga German miya yes they are ha waa yihiin no they aren't maya ma ahan. 7 waa qaybta exercise-ka marka cashar kasta exercise uu leeyahay. haddii uu soo gaaro exercise-kan videoga joojiso oo ka shaqeey.
Is he friendly qof bashaasha miya no he isn't maya ma ahan two kan labaad are they students iyaga arday miya yes they are how way yihiin is it sunny qorax miyaa jirta yes it is ha qorax ayaa jirta are you Italian Italian ma tahay no I'm not miya mihi no okay are you Italian I think Italian ma tihin no we aren't maya ma nihin okay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin haddii oo videoga ilaa dhamaadka aan la soo gaartay waxaan rajeynayaa inaad mar hore subscribe dhahday hadda horena aad noola joogtay dabcan waxaa ku dhiman oo kaliya asxaabtaada inaad u gudbiso videoga like dhahdo si logarithmka video YouTube-ka oo u caawiyo oo u aragiyo shay dadku jecel yihiin kabacdi oo dadku u gudbiyo Soomaalida caadatan ba ama sida iska caadiga ah waxyaabaha waxbarashada iyo aad u xiiseeyaan waxyaabaha faniga ay jecel yihiin waa sidoo Sheekh Mustafa lahaaye Soomaalida waa dad kaliya intooda waalan dhageysata okay waxaan rajeynaynaa bal in dadka afka Soomaaliga ku hadlaayo in ay ayagana kuuda wanaagsan ay balburiyaan oo ay ka daba tagaan weedhaas xun baxday dadkeena walwal inaan dhageysano oo kaliya bal inaan ka daba tagno annagana aan soo gelino waxyaabaha wanaaga iyo dadka horumarkooda wax uun ku taraya inaan soo gelino ayaan diyaar u nahay fadlan haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow oo waxaa saartaa subscribe asxaabtaada ehelkaaga na u gudbi aad u mahadsan tahay thank you very much that's the end